Qisada aabbahan waxaa laga yaabaa inaad hore u maqashay. Haddii aadan xog ka hayna aan kuu dulmara mar kale. Waa qoys ku nool gudaha magaalada Muqdisho, balse aabbahan ayaa waa hore qaatay go'aan ahaa kuriimada carruurtiisa kadib markii hooyadood ay geeriyootay. Aabbahan waxa uu diiday guur oo dhan, waxaana uu go'aansaday kuriimada gabdhihiisa. Ugu dambeyn gabdhihii waa ay weynaadeen, kadibna iyaga ayaa u guuriyey aabbahooda. Balse maanta isaga ayaa mar kale buuxinaya booskii hooyadood oo waxa uu farxadda la qaybsanayaa gabadhiisa Fahma oo la aqalgalaysa saygii dunida ay ka dooratay. Farxad darteed aabbaha is celin waaya ayaa soo galay hoolkii arooska lagu qabanayay, isagoo gacanta qabsaday gabadhiisa una muujiyey garab istaag waalidnimo. Aabbahan ayaa qurxiyey isla markaana bilay farxadda gabadhiisa, waxaana uu noqday aabbo ubadkiisa u gala abaal qiimo badan. Hadda qoyskii ayaa noqday mid farxad wada hela, mana jiro ruux ka mid ah oo maalin ciishooday. Qosolka iyo dhowl cadeynta ayaa reerkan u noqotay astaanta koowaad. Dadkii ka soo qayb galay xafladda arooska Fahmo iyo saygeeda ayaa noqday dad aad ula dhacay farxadda aabbaha u muujiyey gabadhiisa, maadaama ay ku jirta mid ka mid ah waqtiyadeedii ugu farxadda badneed, isla markaana ay u baahneyd garab istaag. Inta gabdhahan ay noolaayeen waxay heli jireen farxadda aabbahooda. Mar waliba oo cidlo yaray dareemaanna isaga ayaa garab istaagi jiray. Wax kasta oo ay u baahdaan isla markaana isagu u awoodi jiray, kama uusan hagra jirin. Fahmo iyo sidoo kale gabadha kale la dhalatay horaan ayay muuqaaladoodu qabsadeen baraha bulshada xilli ay u guurinayeen aabbahooda, waxaana ay ka hadleen waqtigaasi qiimaha aabbahooda uu ku leeyahay agtooda. Waalidku waa farxadda nolosheenna, markastoo garab inoo yihiinna waxaynu gaaraynaa guulo badan oo la xiriira xagga nolosha. Fahmo iyo sidoo kale gabadha kale la dhalatay inta aabbahooda garabka ay ka helayeen waxay dareemayeen wehel iyo sidoo kale qiimo badan. Laakiinse aabbahan ayaa gabdhihiisa hore ugu ballan qaaday markii ay geeriyooto hooyadooda inta uu nool yahay inuusan ka fogaan doonin, isla markaana booska hooyadooda uu u buuxin doono. Laakiinse howshaas waa uu galay, isla markaana wuxuu noqday aabbo qiimo badan, isla markaana garab istaaga awlaadiisa. Hambaliyo ayaanu mar kale leenahay Fahmo iyo saygeeda.